barnaamijkani lagu daahfurayay hay-adda horumarinta ee kaafi ayaa munaasabadii lagu furayey waxaa goobjoog ka ahaa madax ka kala socotay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga iyo qeybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Istanbul oo ahayd halka daahfurkan uu ka dhacayay. wasiirka gargaarka Soomaaliya Hamza Xassan iyo waliba Yaasiin Aktay oo ah la taliyaha madaxweynaha Turkiga ayaa waxa ay ka mid ahaayeen shakhsiyaadkii lagu martiqaaday kulanka. hay-addan oo xarunteedii ku taalo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ka shaqeyn doontaa horumarinta dhinacyada mashaariicda ee Soomaaliya iyadoona diiradda saari doonta shaqo abuurka jiilka waxbartay iyo waliba in la taageero ganacsatada yaryar ee u baahan in la garab istaago. ugu horeyntii waxaa madasha hadallo ka jeediyey oo soo dhaweyna agaasimaha guud ee hadda kaafi mudane Cabdinaasir Maxamuud Nuur oo maanta lagu daahfurayay camalkeeda ugu horeeyay iyo kulankeeda ugu horeeyay hay-adda kaafi oo macnaheedu uu taagan yahay deeqtoon inay dadka ka deeqtoonaadaan itaal-darrida oo ay dadka ay muxuu ahay ka kaalmayso waxna barto isla markaasna ay gaarsiiso deyn aan lahayn wax dulsaara dadka muxuu ahay tabarta yar kuwa muxuu ahay dhaqaaqi kale oo muxuu ahay fikrada dhaqaalaan haysta ay siiyaan waxa la yidhaahdo microfinancing oo ah macnaha maalgelin yar oo muxuu ahay ay sii ballaariyaan mashaariicda ay ka shaqaynayeen. mushkiladda faqriga oo ay la dagaalamayso hay-adda kaafi oo ay rabto inay kala dagaalamto caalamka islaamiga oo dhan oo ay ku bilaabayso Soomaaliya oo ah meesha ugu horeysa oo xafiiskeeda laga furay magaalada Muqdisho rabtana inay meeshaas ay noqoto meesha ugu horeysay oo camalkeeda ay ka bilowdo. waa faqrigu ma ahan wax u gaara caalamka islaamiga waa wax adduunka oo dhan ka dhaxeeya laakiin faqriga wuxuu ku badan yahay wadamada islaamka haddii aan fiirino boqolkiiba 50 faqriga adduunyada ka jira faqiirinta adduunka ka jira waxay ku nool yihiin wadamada muslimiinta ah mahma kaana annaga aan nahay boqolkiiba aan ka nahay 25 populationka adduunka marka waxaad arkaysaa sida uu saamiga u kala duwan yahay inaan tiradeennuna ay yar tahay faqriga ku nool wadamada islaamkana uu badan yahay. marka waxaan aad ugu faraxsanahay daahfurkan inay ka soo qayb galay wasiirkii samafalka iyo muxuu ahay maareynta azamooyinka Hamza Saciid Hamza iyo safiirkii Soomaaliyeed oo Maxamed Cabdullaahi oo ay sheegayso taas inay dawladda Soomaaliyeed ay aad u garab taagan tahay mashruucan iyo hay-addan hadda bilaabanaysa oo ay noqon doonaan dadka Soomaaliyeed markay ka faa'iidaystaan. علي محدين القرداقي oo xogayaha guud ee ururka caalamiga ee culimada islaamka ahna la taliyaha hay-adda kaafi safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga ambassador Jaamac Cabdullaahi Ciidiid ayaa bogaadiyay hay-addan. بداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة الذين قاموا على هذه المؤسسة المباركة الذين أتاحوا لنا فرصة المشاركة في هذا اللقاء. كما أهني المجتمع الصومالي على إقامة هذه المؤسسة في مدينة اسطنبول في تركيا التي لا شك أنها نتاج جهد ذهني وعملي جبار. كما رأينا شرح وتقديم الشيخ العلامة القرضاغي هذا الفكر انقدح في أذهان أناس مخلصين فكروا وتدارسوا في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الفقر والبطالة وانعدام مصدر دخل مغن عن العوز والحاجة. munaasabadan ayaa waxaa soo gabagabeeyay wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya Hamza. halkan maanta u joognaa inaan daahfurno hay-adda Kaafi Foundation for Development. waa hay-adda loo baahan yahay maanta waddanka xaaladda aan ku sugannahay. waddanka wuxuu ku jiraa xaalad adag xagga mar abaar mar daad markasna muujooyinkan kale inaan gacan shisheeye maarta inay noo yimaadaan ee soo gargaarnaa waxa u maleysana caalamka inay naga daaleyn say wax noo siin jireen waa waqtiga la gaaray oo laga bixilaa marxaladii maxal yiraahdaa gargaarka aan loo gudbin lahaa ee horumarka in laga shaqeeyo mashaariic la sameeyo
daraad dhow alxamdulilah daadadkii beledweyne iyo bardaale si fiican looga hortagay laakiin weli meesheeda taaganta hadda xilligii roobkan loo dhow yahay mar dhow haddana waxaa imaan kara haddana markale daad kale imaan karo weli xal gawaaro loo mehelin webiga Shabeelle taasna waa laga shaqeynaa waxaan rajeynayaa adaan inay meel fiican ka soo baxdo in shaqeyso waa fursad kale oo dahabi ah oo la doonayo in looga faa'iideeyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo shaqo la'aan baahsan ku haysata gudaha dalka Soomaaliya. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.